qaala jacfar ibnu muxamed wuxuu yidhi sheekha la yidhaahdo cajibtu waxaan la yaabay buu yidhi liman buliya biarbacin kayfa yakfalu can arbacin nin afar arrimood lagu imtixaamay afar arrimood see u hilmaami karaa afar arrimood haddii lagugu imtixaamo oo ay kugu dhacaan waxaa la doonayaa afartaa arrimood inaadan hilmaamin oo kale man buliya ninkii lagu imtixaamo bilqami murug kayfa laa yaquulu sidee buuna u odhanaynin laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin murug markay ku qabato una aayaddaa ku wardi laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ilaa anta ducaau yuunus binu mataa soo maaha ismu acdamkaaba lagu sheegay sida axaadiida kusoo aroortay ilaahay buu ku baryey wahwa fii badni lxuut asagoo kalluunka calooshiisa ku jira saddex mugdi buu ku jiray baade dulmat lleyl iyo dulmat lbaxri iyo dulmat lbadni saddexdaa mugdi buu ku jira saddexdaa mugdi dhexdooda yacni habeenka mugdigiisii iyo biyihii badda iyo kalluunka calooshiisa asagoo kusii jiro saddexdaa mugdi dhexdooduu ka dhawaaqay laa ilaaha ilaa anta macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane subxaanaka tanziihan baa laka kuu sugnaaday inii anigu kuntu min adaalimiin ilaahayo waxaan ka mid ahay kuwa daalimiinta ah amar la-aan buu nabi yuunus baxay soo maaha qoonkiisii markay rumayn waayeen ayuu xanaaqay cadaab baa idiin imaanaya buu yidhi cadaabkii baa yar daahay wuu xanaaqay doon buu iska raacay doontuna dabeecadeedu waxay ahayd waktigaa nin addoon sayidkiisii ka soo dhuuntay hadduu soo fuulo ma soconayso way ciiraysaa doontii markii la fuulay inbay waxay bilowday markaas war maxaa nugu dhacay yaa nugu jiro aan isbaarnaale aan qori ridano nin addoonkiisii sayidkiisii ka soo dhuuntay oo aan la soo idmin baa nugu jire aan qori ridano markii la qurcaystayba nabigii bay ku dhacday ilaahay buu amarkiisa kumuu soo bixin markaa kumuu soo dhaqaaqin wey waa marka waxaa laysku raacay nin alla ninkii qoriguu ku dhaco oo idan la-aan soo fuulay doonta waa in badda lagu tuuro bes hor iyo daba un baa la qabtay oo baddi baa lagu tuuray dee markiiba kalluunka ilaahay ugu talagalay oo sidaa afka u kala hayo qalam waa laqay markaasuu aayaddan halkaanu markaa wardigaanus laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin marka nin alla ninkii murugtiisa ilaahay baa fayday soo maaha kalluunkii baa laga soo tuuray badda xeebteedaa lagu soo riday halkiibu xoogaa yacni ku noolaaday markii kadibna ummaddiisii baa mar labaad yuu ku noqday markaa kadib baa waxaa rumaysay 100,000 ow yaziiduun baa ilaahay leey 100,000 iyo kasii badan baa raacday oo ummadii ah weyni noqotay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii markii lala hadlay uu fasbir kamaa sabara ulul cazmi walaa takun ka saaxib alxuut baa ilaahay sida dadka ulul cazmiga rusushan ulul cazmiga la yiraahdeen rususha ugu fadli badan say u sabreen oo kala u sabar walaa takun ka saaxib alxuut ninkii malayga u saaxiibka ah kala ha noqon Yunus bin Mata ha degdegin baa leey marka waayahay marka nin alla ninkii murug ay ku dhacdo see u hilmaami karaa buu leeyahay sheekh maxamed bin yaani Jaafar bin Muhammad la yiraahdo aayadan way wallahu ta'ala yaqul ilaahi baa wuxuu leeyahay fastajabna lahu wanajaynaahu min al-ghammi wakadhalika nunji al-mu'minin marka aayada markaad akhriso ballanqaadka dambe dib lagu ballanqaaday lagu yabohay fiiri markay murug ku qabatabo laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin sidaa dheh hayeelay markaas waxaad rajaynaysaa oo sugaysaa ballanqaadka ilaahay baa wuxuu yidhi fastajabnaa lahu nabi yuunus waan ajiibnay wanajaynaahu mugdigii iyo meesha khatartaydu ku jiray baan ka badbaadinay min alqami murugtii baan ka badbaadinay wakadalika nunji lmu'miniin mu'miniintana saa un baan u badbaadinaynaa markay dhibaato qabato ilaahay leey marka hadday murug ku qabato seed u hilmaami kartaa aayaddan ha hilmaamin buu ku leeyay waman khaafa shay-an shay ninkii ka cabsado cabsi markay ku qabato meel khatara aad gashana kayfa laa yaquulu sidee buuse u odhanayni oo u hilmaamayaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil sidaa inaad tidhahdo xasbunaa kaafiga anagu allahu ilaahay weeye wa nicma alwakiil mid la tala saartana isaga unbaa u nicmo badan wallahu tacaala yaquul ilaahay baa wuxuu leeyahay fanqalabuu binicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suu baa ilaahay leey ya markaa nabigi iyo asxaabtii calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii nabiga iyo asxaabtiisii ayagoo yar markii cadowgii lagu cabsi geliyey oo ayagoo fara badan oo yacni waxayna tabar u haynin baa idinku soo duulaya markii la yidhi maxay yidhaahdeen yani xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbuna allah kaafiga anagu allahu ilaahay weyo nicma alwakiil marka ilaahay wuxuu noo sheegay fanqalabuu binicmatin min allahi wa fadl yacni waa dagaalkii beder nicmay waxay la soo gadeemeen nicmo ilaahay xaggiisaata iyo fadli lam yamsashum suu wax dhiba ma taabanin ilaahay qalabadii buu siiyey guushii buu siiyey
waxay la soo hoydeen yacni guul iyo fadli iyo ziyaado waay marka mar alla markaad cabsato aayaddaas ha hilmaamin xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbuna allahu wa nicma alwakiil sidaa dhowe marxaban marka waxaa la rabaa qofka mu'minkaa markii uu aayadda maqlo ama xadiidka uu maqlo inuu ku camal falo oo weliba uu tajribo ka qaadaa la doonay culimadii hore waxay dhan jireen markii arrintaan oo kale shaygaasoo la sheego qad jarabnaahu waan imtixaamnay oo yacni fa kaana lahu sidaa un baan ku aragnay sidii ayadee markaa marka inaad imtixaantaan la doonaya waxa inaad ku kalsoonaato camalfalka diinta waxaa la rabaa inaad tidhaahdo waxaan soo ballanqaad ilaahay maaha soo lama sheegin bal samee waman mukira bihi nin alla ninkii la khayaano oo dhagar iyo khayaano iyo xeelad loo sameeyana yaquulu waa inuu yidhaahdo see u hilmaamaya laa yaquulu waa inu yani kayfa laa yaquulu sidee buun u odhanaynin wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad haddii lagu khayaamo ama xeelad iyo makri lagu sameeyo iyadoo yani lagu khayaanayna aad aragto wa ufawidu amrii amarkayga waxaan u bandhigayaa ila allah iska dheh ina allaha basiirun bilcibaad ilaahay baa addoommaha arkaya ninka wax maleegayo ninka wanaagga qalbigiisa uu ku jiro ilaahay baa arkaya moogtahay maamulka ilaahay maana soconayo kan addoon weeye yani makrigiisu waxba ma tarayo wallahu tacaala yaquul ilaahay wuxuu leeyahay fawaqaahu llahu sayi'aati maa makaruu fawaqaahu llah ilaahay baa ilaaliyo ka ilaaliyey sayi'aati maa makaruu waxay makrayeen oo maleegayeen oo guntayeen xumaantii ilaahay baa ka ilaaliyey waman raqaba fii shayin shay ninkii jeclaadana kayfa laa yaquulu sidee buusa u odhanaynin maa shaa allahu laa quwata ila billah maa shaa allah ilaahay wuxuu doono yakuunu kaana u ahaadaa laa quwata awood ma jirto ila billah ilaahay unbaa awood iskale wallahu tacaala yaquul facasaa rabbii an yu'tiyanii khayran min jannatik afartaa waa inuusan iloobin see u hilmaami karaa ayuu leeyahay sheekh see u hilmaami kara waxaan ku dhaqanno oon maalnaa ilaahayna siiyey diinteenna inaan maalnaa la doonaya wax walboo kanzi iyo wax walboo khayraada diintay ku jirtaa marka wax alla waxaa doontaba diinta u adeegso waad ka helaysaa mudabbir alkhalaa'iqi ajmaciin mudabbir alkhalaa'iqi khalaa'iqda iyo makhluuqaaga allihii